بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد آديات بدو بعد سنة هاي داوشة داونيسد إيجا قدون سلان قالئة سلان كتمد ولال كجعل إله درتيسة سلان قيمة بدن سلان سيدة جعيل نحريس ينبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحريس ينبتقليو كوكي نها أهاتو سؤاش أوغو عجيب كبضن قفك أو إسويدية وحيتهي ومحي سببت أطنوشهي ومحي سببت لغو أبوري ومحي سببت أتأجوكتت أدونكن وسؤال عجيب وسؤال لو باهي هاي قف والبأناغا نغمت إن أو إسويديو si uu u xaqiijiyo sababta loo abuuray asiga sababta loo keenay adduunkan ilaahay subxaanahu wa tacaala midka anagana abuuray oo noo tilmaamaya sababta adduunkanna loo abuuray hadafka adduunkan laga leeyahay nolosheena laga leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala asiga noo tilmaamaya wuxuu leeyahay wamaa khalaqtul jinna jinni iyo insi maanan u abuurin ilaa sababta ugu weyn aan u abuura waxay tahay in ay icaabudaan waan ognahay dhamaanteena in sababta ugu weyn uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo abuuray ay tahay in aan asiga caabudno laakiin xaqiiqa ahaan aan u fiirina nolosheena qof hadduu aado London kadibna isweydiiyo waa maxay sababta aad u timid London ama waa maxay sababta halkan aan u joogo maxaan ka sameeynaa halkan waan la yaabaynaa su'aashaas waxaan leenahay waxay tahay waa maxay sababta halkan ku keenay adiga ma waxaad u timid waxbarasho ma waxaad u timid ganacsi waxbarasho hadaad u timid waxaad aadaa waxay tahay iskuulada hadaad u timid ganacsi waxaad aadaa meelaha shaqada iyo waxyaabaha la mid ah yacni qofka sababta meel u joogo waxay go'aamisaa waxa uu sameynayo hadaad u timid in aad shaqaysid shaqaad aadaysaa marka adiga adduunkan sababta lagu keenay waxay tahay waa cibaada waxaana xanuun badan waxay tahay marka in qofka uu ku mashquulo waxyaabo kale aanan asiga loo abuurin marka isweydii hadafkaas lagu abuuray cibaadada miyaad xaqiijisay culimadu waxay leeyihiin hadaf aanan lahayn dhaqaaq aanan lahayn jadwal aanan lahayn wado sax ah tilmaamaya sida loo gaari lahaa hadafkaas waxay noqotaa waariyo aniga waxaan rabaa waxay tahay halkaas inaan gaaro laakiin sidan u gaari lahaa ma aqaan jadwal iyo ma dejisana sidan u gaari lahaa inta aan gaari lahaa waxay noqotaa riyo waa iska riyoonaya waa wax aan iska sabiranaya aan iska rabo isweydii marka isxisaabi fadhiiso sideen ku xaqiijiya hadafkan ugu weyn cibaadada inaan rabbigay aan caabudo azza wa jal okay salaad waa inaad tukada waa inaad rabbigay u dhawaada waa inaad dadka akhlaaq wanaagsan ula dhaqmaa iyo wixii la mid ah سؤال كلا أيا جرتو كسي مهمسن أو وامحي صببت إلهي ونو أبوغي وحيته وعبادة وامحي صببت إله سبحانه وتعالى عبادة ونو أبوغي إله سبحانه وتعالى مت إنا أوغانا ومهم إله سبحانه وتعالى عبادة لنا وحبا كما غب إله سبحانه وتعالى بقوتي مذيسة وحبا زيادة منه هذا عابدنا أم هذا عاسنو أنا جا يا ربي جينا أباهن آمنا قفك ربي هلا وحول بوه لي قفك ربي جيس كفو هذا واينا وحول بوواي سببت إله سبحانه وتعالى أنه أبو عبادة وحيتها سئوا نوع امتحان إله وحول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم عليه أبو غي جيري ينولل أدون كان أردن أوجد إسخلافة يبغاب كسود أي كل سببت محيتها سي أنا نوع امتحان إله سبحانه وتعالى سئوا أفير يمتك أطيعي يمتك كفوغانيا ودديسا أن كد ذلنا إنا حقيقنا هدف كاس أقوين لحظا سنة نولو سغاشا سنة نولو مالك ربتد هل ساربتد نولو لكن هدادا حقيقي الهدف كان أقوين واتقصات إله وحوليه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قفك كل لحظة ذكري يجا نولش حقيقة الله أبو عبادة كل لحظة نول عغيري مجد أيولي هاي أدون كان مجد يكون ولانيا مالنت قيامنا مجد يكون ولانيا ما كسويدي 100 حقيقي سي هدف كان أقوين لجو أبو غي أو أطاع الله سبحانه وتعالى آية إله وليه هاي آية الله وليه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
qofki jirkiisa laga badbaadiyo naarta jahannam yani naar nolol oo wiliga waad ku noolaanaysaa qofki jirkiisa laga badbaadiyo naartaas wiligiis lagu noolaanayo ama janna farxadaas iyo barwaaqadaas wiligiis lagu noolaanayo qofki la geliyo jannadaas xaqiiqa ilaa wuxuu leeyahay goolka adduunka uu dhaliyo uu liibaanay aan ku dadaana liibaantaas in insha Allah taala u shaqeysano aad iyo aad baa u maasanta walaalaha kan si gaarsiya salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh